السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى لا يابا صوبح سومالي وعلى لا يابا ننكي دان رئيس الوزراء وزيركي وصاد البضي oo shaqadii u igmaday oo shalay la dhaariyay maanta sadanle mursal baa wuxuu u helay qodob lagu soo celiyo mise warqadda ra'iisul wasaaraha lagu laado ra'iisul wasaaraha naftirkiisa loo sheego inaan sharciga waxba ka aqoon kaas waa mursal aanu reerayga shalaan u sheegay inuu muudeyna soo dardargalay mursalna soo daba haysto ayna kaalmeyn doonaan farmaajo Fahad Yaasiin ra'iisul wasaaruhu Allah ku galay aad iyo aad uga xumaa waa ku taageersananiyo laakiin adna qodobkaaga raadsa iskaga celin lahayd mursal adna qodobkaaga raasho iskaga celin lahayd mursal maanta waxaa hadlaayo xildhibaan Idris Cabdi Takhtar oo ku beela mursal oo VOL-ka la hadlay iyo wuxuu sheegayo inay ila dhageysataan baan jeclaan lahaa waan ogaa habeen hore in la wacay ninkaas oo lala hadlo la yiri soo noqo laakiin ilaa heerkan uu gaarayaa ismaan lahayn walaalayaalow waa ku kaasa inta iga qosaysa haddaan aado waxaan arkahayay fariimo gudoomiyaha baarlamaanka uu soo diray uu leeyahay shir degdeg ah oo albaabada u xiran yahay baarlamaanka iskugu wacay waa nasiib darro aad u weyn in golihii shacabka gudoomiyaha golaha shacabka hadda baarlamaan xildhibaan maxamed xasan idris oo haatan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa fashiliyay qorshe culus oo uu wado gudoomiyaha golaha shacabka wuxuuna shaaciyay in uu doonayo in shir degdeg ah uu isugu yeero xildhibaanada Soomaaliya xildhibaan idris oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa tilmaamay in gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu fariimo u diray qaar ka mid ah xubnaha golaha taas oo uu ku aadan shir degdeg ah oo uu yeelanayo baarlamaanka dalka waxaan arkay fariimo uu gudoomiyaha baarlamaanka u soo diray ee uu ku leeyahay shir degdeg ah oo albaabada u xiran ayaa baarlamaanka isugu wacay ayuu yiri Idris ayaa sidoo kale nasiib darro ku tilmaamay in haatan mursal shir uu isugu yeero baarlamaankii tobnaad ayadoo kii 11aad ee la soo doortay lagana soo doortay 29 senatar sida uu hadalka u dhigay waxa kale uu intaasi ku sii daray in aysan jirin fooda ka weyn oo dalka la gelin karo marka la eego tallaabada uu qaadayo gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya waa nasiib darro aad u weyn in gudoomiyihii golaha shacabka hadda baarlamaanka tobnaad uu isugu yeero baarlamaankii 11aadna 29 senatar ay dooran yihiin ayna banaanka joogaan marka taa fooda ka weyn dalka la gelin karo ma jirto ayuu hadalkiisa sii raaciyay xildhibaan Idris baarlamaanka Soomaaliya ayaa haatan ah mid u kala dareeray gobolada dalka ayagoona deegaan doorashadooda ka raadsaday in ay mar kale dib ugu soo noqdaan waxayna hardan iyo tartan aad u adag xilligan ay u galayaan sidii mar kale ay u noqon lahaayeen baarlamaanka 11aad ay qayb kaga noqon lahaayeen dalka Soomaaliya xilligan waxaa ka jirta siyaasad aad u cakiran gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii ay kaga nabadeen lahaayeen maxamed mursal iyo ku-xigeenkiisa sidii ay nabadeen aad iyo aad bay u mahadsantihiin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waa nin u dhashay reer koonfur galbeed wuxuu u tarayna malaha waa raggii xiray Mukhtaar Row number 1 isaga ka farmaajo daba dhilifka ugu weyn oo ku shaqeystana waa isaga waxaan la yaabanahay dhibaatada anagana haysato sababta looga waayay dastuur sheegaya ciidankeena la soo rarto meelahan lagu xureeyo annagana al-shabaab laba taaka aan kala socon karin magaalada wadada Baydhabo iska xiran tahay tii Xudur iyo Baydhabo xiran tahay oo tii Waajid xiran tahay bardaalo oo 30 kilomitir u jirto Baydhabo aan la tagi karin iska dhaafe ciidankii la kala daadiyay kii kalena aan la siinayna mishahar qodob dastuurka Soomaaliyeed ku saabsan
maadaama xaaladdu ay tahay 4.5 hal qodob waana looga waayay dastuurka Soomaaliyeed xaqdarradeena sheegayso iyo dhibaatada naloo geysta sheegayso laakiin markuu yimaado farmaajo iyo afaarihiisii iyo qodob u raadintiisii dastuurka sadanli wuxuu noqdaa mid baalashiisa meel walbaba iyaga ku qoran annaga laakiin hal qodob waana looga waayay ma tiraadid midda wadada xiran ma tiraadid Amazon ta joogtan shaqaynaynin ma tiraadid Ethiopianka iska dhooban oo waxba qabanaynin abiyuska maalin walba dadka shacabka Soomaaliya oo reer koonfur galbeed inta la xirxirto haddana madax furasho laga qaadayo si deliberately misheer lagu dul sameeynayo shacabka koonfur galbeed qodob ka hadlaayo ma jirto amniga koonfur galbeed qodob ka hadlaayo ma jirto saraakiishooda misheer la'aanta qodob ka hadlaayo ma jirto hubka aan la siinaynin oo laakiin dawlad goboleedyada kale loo daldalaayo loo daadguraynayo ma jiro dastuurkii Soomaaliya annaga maadaama 4.5 ay tahay waana looga waayay hal qodob na saacido ninkan iska xiran oo 4 sano Mukhtaar Roobo ay leeyihiin qodob u hadlo waa la waayay caruurteeni la laayo amxaarana lagu soo weeraray qodob waa loo waayay laakiin markay farmaajo timaado qodobada saas u kala helaa saas u kala daadeen nin kale la yiraahdo Mursal isagii muuday warya muudayaan Mursal waxa idin weydiinaya waraaqaha inta la yimid dhulka iyaga lagu boobaayay dastuurkiina muxuu ka lahaa wadada afgooy ilaa xamar soddonka isbaara taalo deegaan kale ay u taalana aan jirin dastuurka muxuu ka leeyahay sababta koonfur galbeed dadka ciidamada ugu badan laga soo qoray ay u tahay iyadana xataa wadadeeda amaan la'aan ay u furan yani u xiran tahay maxay tahay mi shay kartin sidoo u shaqeeyaa dastuurka Soomaaliya noocu u shaqeeyaa markii lacag la siiyaa ma hadda kadib lacag baan ku soo aruurnaa Mursal lacag baan ku soo aruurnaa reer koonfur galbeed haddii aan nahay si aad noogu heshid qodob annagana saacido dhibaatadeena ka hadlayso ya dhibaatadeena qodob ka hadlay sidaad u soo heli lahayd ma shahar baan ku qornaa kursiga yaa ugu fadhidaa ma farmaajo ugu fadhidaa ma annaga noogu fadhidaa ma annaga yani madaxeenu ku tagtay mise farmaajo madaxiisaad ku tagtay sidee wax u jiraan Mursalow muudayow see wax u jiraan shabeelladaas ma ka warhaysaa in la boobay muudayow shabeelladaas in la boobaayo ma ka warhaysaa adoo hadlaayo kuma maqline adoo qodob raadinayo kuma maqline sadale maanta laakiin qodob xataa ra'iisul wasaaraha lagu aflagaadeynayo la leeyahay sharciga ma taqaanida waa inaad soo barataa warqadda nidaamka loo qorayna waa nidaam aan dastuuri ahayn iyadoo naftirkeeda ninka dastuurka tixraacayo dastuurka xoogsanayo leh dastuurka sidaan ma qoro warqadda uu soo qoray baan dastuur ahayn because handadaad buu ku soo qoray waa gudoomiyihii baarlamaanka handadaad ayuu ku soo qoray hadda bentayda moodaysin warqaddii Mursal soo saaray oo lagu fashiliyey wasiirkii shalay la dhaariyo amniga loo doorto ra'iisul wasaaraha soo saaray ha la akhriyo weliba 4 qodob oo labada sadaro ugu dambayso meesha istaamka iyo signature-ka saaran akhriya inta kale waxba uu soo faahfaahinaya laakiin labadan erayo meesha ku qoran waa handadaad banaan yaalo gudoomiyihii baarlamaanka iyo ra'iisul wasaarihii wadanka handadaayo gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaarihii wadankii Soomaaliyeed xukuumadii handadaayo leh sharciga ma taqaanid ma ceeb ka weyn baa jirto taas ya ma ceeb ka weyn baa jirto teeda kale kalfadhiga tobnaad oo hadda dib u furaayo kii 11 sanataradii la doortay haddii sanataradina 4 dawlad goboleed ay soo gudbisay mise 5 way soo gudbisay waxa ugu dambeysay Cali Gudla uu soo gudbiyay Puntland way soo gudbisay Galmudug way soo gudbisay Jubbaland way soo gudbisay Koonfur Galbeed way soo gudbisay haddii sanataradiiba ay xamar ku sugan yihiin oo la soo doortay kalfadhigii 11aad sidee kalfadhigii 10aad dib loogu soo celiyaa ilaan lacag hadday timaado dastuurku wuu isbedelaa ani saas maan ogeyn lacag hadday timaado dastuurku wuu isbedelaa Mursal wuxuu go'aansaday
inuu difaaco fahad yaasiin iyo farmaajo raadadan waddanka daraata markii 2 sano oo waa ku daraa uu yiri waatii magaalada xamal ay qalqashay oo hub lisu soo qaatay maanta haddana qodob kale oo la yimid ma maqlaysaan Soomaali weyne qodob kale oo la yimid ninkii shalay la dhaariyay maanta waxba kama jiraan waay warqad baa la soo saaray kal fadhigii tobnaadoo la xiray oo dadkiisi doorasho aadeen qaarna sanataradina aqalka sare la soo doortay kii hoosana la isu barbaraarinayana dib baa loo furay sidaa ula socda aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa sheekh shariif ka hadlaayay oo lahaa dhibaato yaa la gaarsiinin Soomaaliya war meesha heshiisiis fiican ha la sameeyo ummadan waxay cunaan la qaxyaan la gelin haddii dad qax galaayana maanta mursal ninka gudoomiye baarlamaanka isku sheegayo waxba keer gareenin markaan ku leeyahay reer koonfur galbeed hal qodob loogama helo baarlamaanka hal qodob dastuurka annaga loogama helo waayo dadka qaxootiga ugu badan maanta annaga aan noqonay dadka kaamleeda annaga ugu noqonay dadka dhulkooda la booba annaga aan noqonay dadka ugu saraakiisha badan annaga aan noqonay dadka hubka aanan haysanin oo ugu tabaalaysan annaga aan noqonay dadka ugu badan shabaabta dhulka ay gumaadana annaga aan noqonay hal qodobna dastuurku waa nalooga waayay oo nasaacido dawladda nagala hadasho tiraahdo saraakiishan lacagta aan la siinaynin saraakiishan la daadinayo saraakiishan meel walba loo kala wado askartaan hala joojiyo deegaankan dadkiisa in la difaaco u baahan yahay hal qodob dhahayo waa naloo waayay annaga dhulkan la boobay hala joojiyo qodob waa dhahayo waa naloo waayay abnigeena wax keer gareeyo waa naloo waayay qodoba ummadeena wada kaamka soo gashay qodob waa naloo waayay laakiin midkii fahad iyo yani difaaci lahaa iyo farmaajo waa tan maanta la helay sidaana haysato aad iyo aad baan uga xumaa inaan hal deegaan isla sheegan aniga mursal waa idin salaamaya kulli waad mahadsantihiin